bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan idil ahaanbaa dadkeena daawanayo kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan idinkaga soo diyaarinay magaalada Stockholm ee xarunta wadanka Sweden. Toddobaadkan barnaamij aad iyo aad u qiimo badan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Stockholm kaas oo ku saabsanaa dhismaha qoysas sida lagu dhisi karo qoysas waara ama qoysaska iminka dhisan ay u heli lahaayeen waaritaano abidi ah oo ku dhisan jacayl iyo isfaham. barnaamijkaas oo ahaa seminaar runtii ay kasoo qaybgaleen dad aada u fara badani oo ku nool magaalada Stockholm ee wadanka Sweden oo isugu jira hooyo, waalidiin iyo weliba dad iminka doonaya inay aqalo cusub ay dhisaan. barnaamijkaasi oo loogu magac daray isfahamka lamaanaha iyo kobcinta jacaylka ayaa waxaa toddobaadkan barnaamijkaasi seminaar ka jeedinayay Sheekh Axmed Jawhari oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ee sida weyn looga yaqaano wadanka Soomaaliya ama dadka Soomaaliyeed si weyn ay u yaqaaniin. Sheekh Axmed Jawhari markuu hore ku soo dhawo telefishinka qaranka Soomaaliyeed SNTV xaruntiisa wadanka Sweden. markuu horeysa waxaan jeclaan lahaa inaad noo bayaaniso barnaamijkii toddobaadkan aad ku qabatay magaalada Stockholm oo ay kasoo qayb galeen dad aad u fara badan oo run ahaantii dhowr boqol oo isugu jiro waalidiin iyo dhalinyaro habla iyo dumar isugu jiro oo qaarkood aan guursanin qaarkood doonaya inay nolosha wax badan ay ka ogaadaan. barnaamij aad u qiimo badan ayaa soo gudbisay. barnaamijkaasi ciwaankiisu ahaa isfahamka lamaanaha iyo kobcinta jacaylka. maxaa barnaamijka u dooratay? bismillahi raxmaani raxiim, alxamdulilahi rabbi alcaalamiin, thanaa lillahi wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed wacala alihi wasaxbi ajmaciin. marka hore ilaahay baa mahadle subxaanahu watacaala. marka xigta walaalkay xudayfe aad baan kaaga mahad celinayaa fursadan aadka u qiimaha badan leh in uu gaadho barnaamijkii maanta ka dhacay xaafadda Rinkeby caasimada dalka Sweden, Stockholm. markaan ka imaado mahadnaqa runtii aan usoo laamo su-aasha ah yacna maxaa idinku dhaliyay sidaad walaalkay ka warqabto 20 sano ka badan ayaan galbeedka ku noolahay. dacwada iyo bulshada ku dhex jirkeedana wax badan ayaan la kulanay oon aragnay. runtii 7 sano ee u dambeysay ayaan mawduucan aan dhex galay aniga iyo xaasku. waxaana la kulanay runtii oon aragnay qoysas badan oo u badan qoysas ka yimid iyaga oo isqabo dalalkeeni geeska Afrika ku yaalay galbeedka soo galay. waxaa isku dhacay markaa clash yacna isku dhac laba dhaqan dhaqankeenii Soomaaliga ahaayeen kala imanay dhulkii iyo dhaqankii lala yimid iyo dhaqankii halkan galbeedka loogu yimiday. labadii markay madaxa isdareen markaan arrintaa aan sheegay haddaan sii dhex galo walaalkii Xudayfow مثلا waxaa ka mid ah dhulkeenii ragga iyo dumarku waxa u kala cadaa hawsha iyo mas'uuliyaadka. nin kastaba meeshiisa ayuu maaragtay yacna ku jiray oo uu shaqadiisa ka qabanayay. galbeedka markii la yimiday wixii baa isku dhex daatay. waxaa soo baxday mararka qaarkood in la garan waayo dadka shaqada ay kala leeyihiin. taasi waxay keentay isku dhac madaxa in la isdaro oo ninka iyo xaaskiisu inay isku qabsadaan mas'uuliyaadkii iyo xilalkii. waxay keensatay inuu furitaankii bato. hoos markaan usii degno ilaa muddaa la joogay waxaa dhacday markaa in ilmihii soo koray ama dhalinyaradii soo kacday inay iyaguna tallaabo lamid ah sidii kuwii ka horreeyey ay qaadaanoo maadaama oonan la diyaarin, maadaama oonan loo sheegin, maadaama oonan la barin, inaynan fahmin qofka aada la noolaanayso ama aada guri aada la yegleelayso waxaa ka ratimaya mas-uuliyadda. deeta waxaa ku dhacday expectation wax la yidhaahdo qofku wuxuu filanayay iyo reality xaqiiqadii. tiibaa keentay iyaga qaarkoodii laftigooda inay isku dhacaan ay kala tagaan. waxaa cabsina gelisay marka in dhalinyaro badan oo ama single mother ama single father inay soo baxdo ayada oo raydka maaragtay furitaanka uu sare u kacsan yahay. ayaan marka waxaan ku tashanay in aan maxaan ku idhahday la wadaagno walaalaha hadday kuwa waaweyn yihiin hadday kuwa yaryar yihiinba qaabka loogu noolaan karo noloshan galbeedka ku taale ciriiriga iyo sidii labada qof ama gurigani raaxo uga jiri lahaa iyadoo la ilaalinayo diinteenii dhaqankeenii iyo dabcan
dadnimadeennii jiritaankeena ama identitygeena aan idhaahdo maaragtay muslin iyo soomaaliba ah. waa tahay barnaamijka maanta waxaa ciwaan uga dhigatay isfahamka lamaanaha iyo kobcinta jacaylka. runtiina maanta markaa barnaamijka jeedinaysa dad badan indhaha ayay kula raacayeen oo waxa ay fiirinayeen markaa isbarbar dhigaysay sida qofka uu u dooran karo ama uu xulan karo qofka uu la noolaanayo. marka soo dhawo. xudayfa waad ku mahadsan tahay runtii. yacna inagu waxaan horay u naqaanay yani dadka su-aalaha waxaan ku weydiiyey dabcan t v-ga barnaamij aan lahaan jiray baa jirta oo la odhanayay furaha qoyska. runtii aad baan ugu faraxsanahay t v-ga s n t v qaranka inaan barnaamijkan laftigiisa aan ka qayb qaato oon aan halkan ka sheego. furaha qoyskana arrintaasaan uga hadlaynay runtii. maanta waxyaabahaan soo bandhignay waxaa ka mid ahaa kala duwanaanshaha rag iyo dumarka. aada iyo aad. raggu sibay u fikiraan, waa gartay. dumarkuna si ka duwan bay u fikiraan. haye. waxaan maanta sheegnay waxaa ka mid ahaa maalan gabadh markaad ku tiraahdo waxaad ii sheegtaa ninka aada rabto, gabadhii waxay isku dayeysaa inay kuu sifayso ninka nin nooca u yahay. ay rabta inay kuu sifayso noociyaadkiisa ama sifooyinka uu leeyahay. waa gartay. laakiin markaad dhegaysato waxa ay ka sheekaynayso ninkuuma sheegayso, waxay kuu sheegaysaa gabadh kale sifooyinkii gabadhi lahayd. markaas iyadaa gabadha moogtahay waxay jeceshahay oo iyadu qaabkay u dhaqanto ayay tilmaamaysaa. maalan waxaa ka mid ah inuu ninku hadal dabacsan yahay, inuu maaragtay yacna gacan furan yahay, in waxa ay jeceshahay uu la jecel yahay. caalamka ragga lagama yaqaano waxaas. haye. waxaa raggu ma hayaan. waa gartay. raggu maxay hayaan marka? gabdhihii waa yaabayaan moogtahay. haye. marka ninku wuu ka duwan yahay. gabadha waxaa ku badan hormoono emotion ah, dareen ah ayaa ku badan. waa gartay. ninka hormoonada emotionku way ku yar yihiin oo isagu ma hayo arrintaas. waa gartay. isagu marka inta badan wuxuu ku fikiraa haddii wax la weydiiyo in uu xal keeno. maalan gabadhu waxay uga baahan tahay inuu dhegaysto, ay u sheegato waxa ay dareemayso. aada iyo aad. laakiin isagu wuxuu sugayaa inay ku tiraahdo waxaan baa naga jabay figsi gare toosi. wuxuu diyaar u yahay markaa in uu isku dayo wax inuu xalliyo. inuu xalliyo. wuxuu ka fikiraya inuu xalliyo. iyaduna iyada waxay rabtaa inuu dhegaysto. ninku maba ogaba inay rabta gabadhani inuu dhegaysto. ma oge lama socdee wuxuu leeyahy gabadha waxbay ka cabanaysaa sooma. xalli arrintii uun. arrintii xalli way kala duwan yihiin. ninku caqliyad kale si kale u fikirayaa. mas-uuliyad buu mararka qaarkood ka fikirayaa. maye wuxuu ka fikirayaa dabcan kuma jirto jilicsanaanti iyo waxyaaba badan kuma jirto. nin baa tahay buu leeyahay adigu, ayaduna waa gabadh. marka waxaa kale oo waxyaabaha ku jira kala duwanaanshaha keenay sida ay gabdhuhu wax u maqlaan. yacna documentariyada haddii aada fursado heshiin ka daawada b b c du ay duubtay iyo qanawaadka kaleba ay duubeen. dad baa maaragtay laga qaaday test, la geliyey laboratorium, raggi dumar ba isugu jira, la dhegaysiiyey, la waraystay, laga shaqaysiiyey, yacna dhinac kastaba. waxaa soo baxday xudayfe in dhagaha loo geliyey raggii iyo dumarkiiba oo la dhiiri wax dhegaysta. waxaa loo furay laba cod oo isku dhex jira. u fiirsayaa, laba cod sound, hadal, dhawaq, kelmado la sheegayo oo isku dhex jiraa loo furay. ninku wuxuu maqlayaa hal kelmad, gabadhuna waxay maqlaysaa laba kelmadood. waa kala duwan yihiin. kala duwan yihiin. maqalkii marka gabadhu labada maaragtay dhagood ayay ku maqlaysaa. laba dhawaqo kala duwan bay ku maqlaysaa markiiba. ay awooddaa inay ku maqasho. ragguna hal kaliya. ninku labada dhagood wuxuu ku maqlayaa hal dhawaq. marka saas daraaddeed waxaa dhacda mararka qaarkood ayadoona aqoonta cilmigaa lalahayn ayaa gabadhu ninka waxbay u sheegaysaa. ninku hal shay buu maqlay. sida tusaalihii maanta aad soo qaadatay. haa, tii armaajada oo kale. aada iyo aad. marka
information badan bay u jeclaan sheegtay lahaa in dadkuna ay dhegeystaan armaajada. inta armaajada waxay ahayd runtii waxaa la dhahay armaajada maaragtay albaab kala aad iyo aad jaban ka soo qaad dhuxusha iyo maaragtay baashan uusiga lagu sameeyo aad iyo aad marka maxaa dhacday waan sii daayay jikadan galay dee laba armaajooyin baa maaragtay jaban. maye midina maba laba dee albaab looguma talagelin aad midina albaabkeedu wuu hoos yaallaa marka aniga midee la sheegaya ninka sidiisana maskaxdiisu intaasoo boqol oo information ma wada qaado waa in hal loo sheego halkaa toos uu aado aad iyo aad waxaa la yidhahdaa marka gabdhuhu waxay ku liitaan iyaguna tilmaanta oo markay wax tilmaamayso waxay gabadhu sawirataa baa la yidhahdaa ninka markay wax u sheegaysa wax soo qaad ay leedahay waxay sawiranaysaa maskaxdeeda in uu ninku la ogyahay meesha ay tilmaamayso inuu la arkaya yacna laakiin lama arkay nasiib daro aad iyo aad marka information dhowray ku sii dayn isagoo qaar wuxuu ka qabtay un hal ama labo hadhowtay marka waxay ku canaanani wixii aan maanta dhan kuu sheegaynay waxmaba aragtid ba adiga waxba ma aragtid ba adiga waxaan filayaa gabdhaha qaarkood inay idinku dhacday in adogo markaad tiraahdiin wax soo qabo uu kugu soo laabo inteed dhigtay adiga uu ku idhaahdo aniga laftigeyga waxaa maalin dhow idinku dhacday haye bahasha cinjiyaan laysaga jaraan u baahnaa meel aan dhigay marka ragga iyo dumarka dhibka kala haysta raggu waxay jecel yihiin meesha ay wax dhigaan inaan laga qaadin dumarkuna inay maanta dumarkuna guriga maanta dhanba inay hagaajiyaan ay habeeyaan in loo rafaco hadda laftigiisa wuxuu odhan doonaa hadhowta gurigaan aan laga shaqaynayn muxuu yahay fiir dhinac kalena uu ka canaananaya markii wax haddii la qurxiyana waa dhiba ku yahay marka waxaa dhacday bahasha way maxaa la yidhahdaa geedan cindiyaha la iskaga jaro aad iyo kalarkeeda iyo maro kalarkeeda ay isku eg yihiin baa meesha iska eg yaala aniga waxaan idhi ma arko waxaa la yidhi soo qaada meeshay taallaaye indhaha kala fur saaxiib iska daa sheekada haye waan daalay marka gabadhaydii baa ay ag timid waxay aaba sawka halkan yaala fiiri maradii qaad sawka halkan yaala ade maradaani waxaan way isku eg yihiin maxaa la dhigi aad iyo aad waa kala duwanaanshaha ragga iyo dumarka aad iyo aad marka la hadlayo marka la hadlayo gabdhuhu hadal badan ayay leeyihiin soomaydaan arag ragga qaarkood inay ka cawdaan gabdhaha yidhahdeen dumarku way hadal badan yihiin aad iyo aad ha haweenkuna maxay ka cawdaan marka haweenku aamus bay ka cawdaan in laga aamuso adduunka waxay ugu neceb yihiin ninku inuu aamuso waxay u qaadanaysaa inuu u calool xun yahay ninkuna wuxuu wuxuu neceb yahay inay gabadhu maanta dhan hadal badan taxaas ninkuna wuxuu neceb yahay warkan badan iyo hadalkan badan marka laakiin hadday is ogaan lahaayeen is baran lahaayeen is fahmi lahaayeen ma necbaadeen qof kale ku xisaabtami lahaa wuxuu odhan lahaa qofkani waqtigan wuxuu u baahan yahay in lala hadlo in la dhegaysto ayuu u baahan yahay qofkan wuxuu u baahan yahay waqtigan inaanan la wareysanin nasiini iyo maaragtay xasilooni buu u baahan yahay adiga hadalka wata maanta su-aalihii qaar ka mida ka qaybgalayaasha ay ku weydiinayna waxaa ka mid ahaa in haweenka qaarkood ama ragga qaarkood laftirkooda marka ay gabadhi baadigoobayaan haweenka weliba su-aalahaas ugu badnaa in marka ay baadigoobayaan waqti badan ay geliyaan laakiin marka guriga la yimid ninkii uu isbedelo halka ragga qaarkood isla maanta ay ka cabanayeen ay lahaayeen marka gabadha guriga timaado isbedel xoog laa ku dhaco fiiri laba qolo waa laba qolo isku timid meeshaan aad iyo aad ragga iyo dumarku si fiican waxa ay rabaanna rabitaankooduna wuu kala duwan yahay gabadhii waxay rabtaa in ilaan haddaan weydiiyo dadka ina daawanaya ninka iyo gabadha waa meeshii lalahaa waqti fiican isa siiya quality time waa luqadii aan ka hadlaynay wax kastaba luqad lagu fahmuu leeyahay yacni marka aad dal timaado ee aad soo degto waxaad u baahan tahay luqadii dalka looga hadlayay inaad baratood si aad u fahanto nolosha aad uga qayb qaadato tanina waa dal cusub tanaha qof cusub aad la kulmaysaa oo taariikh dhan wata oo u baahan inaad akhrido hadda qofkan u baahan tahay oo aad fahantood barato furaheed waa inaad haysatid aad iyo aad dadka waxaan kula talinayaa marka luqadda jacaylka ama luqadda qofka kula nool ee oppositekaaga ah aad iyo aad inaad barato aad iyo aad luqadaasi nin la yidhahdo Gary Chapman buug la yidhahdo buu ka qoray haddaad heli kartiin akhrista aad buu u fiican yahay sunnadiina iyo diintiinana ku dabaqda aad iyo aad diintaa ugu horeysay iyo ka badanba
oo noo sheegtay laakiin nasiib darro waxaan maanta sheegayn inaan sunnadeeniina aan ka maqannahay inta badan oonan ku dhaqmin. waxaa ka mid a in waqti la is siiyo. xadiiskii salmaan alfarisi uu warinayey umu dardaa uu la hadlayay ee umu dardaa ay sheegaysay ka dacwoonaysay abu dardaa inuunan waqti u haynin. gabadhu adduunyada waa maaragtay yani hadal cajiibay ku hadashay. walaalka abu dardaa laysa lahu bixaaja ila dunya ayay tiri. adduunyo baahi uma haysay ku tiri. maxaa ku helay markuu ku yidhi walaalka abu dardaa wuu mashquulsan yahay, macnaheedu annaga dan nagama galayo, mama bahan. caqligeeda gabadha in ay aad u caqli badan tahay fiiri, waxay ku tilmaantay baahideedii iyadoo ay isku tilmaantay iyadu inay adduunyada dhan tahay. in nabiga wuxuu yidhi calayhi salaam addunya mataac wa khayru mataaciha zawjatun saalixa. gabadh kasta oo soomaaliyeed oo muslimad ah, gabadh kasta oo muslimad ah hadday doonto yayna soomaaliyeedba noqonin, carab iyo canfar iyo cid kastaba ha yeelata zawja saalixa ma tahay. maxay markaa ka dacwoonaysa gabadhaasi inuu abu dardaa u ka mashquulay. salmaan alfarisi wuu la joogay, wuu la degay, waxbuu la cunay, wuu la jiibsaday. wuxuu ku yidhi markaa ina linafsika calayka xaq, naftaadu xaq bay kugu leedahay abu dardaayo, xaaskaagu xaq bay kugu leeyihiin, rabbigaaguna xaq buu kugu leeyahay. cid kaste xaqeeda sii, facdi kula dii xaqin xaqahu. waxaa ka mid a marka quality time, in reerka time la geliyo. ragga xaasas kale hadday dacwad ka shaqaynayaan, haddii ay business ka shaqaynayaan, haddii ay iskoolla ka shaqaynayaan, hadday horumarinta bulshada ka shaqaynayaan, iyo haddayna shaqaynba, nin kasta waxaan weydiinayaa gabadha markuu guursanayay wuxuu ku bixiyey waqti, wuxuu ku bixiyey kharash, wuxuu geliyey caqli. laakiin gabadha guriga markay usoo gashay ay ilmo u dhashay inuu ka cararo ama uuna la joogin uu waqti siinin, waa ceeb weeyaan. qof dhan oo maaragtay qurux badan buu hallan ku haystaa oo maaragtay waxay ka cabaadayeen ma sheegaya marka iga raali noqo. markay awlaad ilaahay kala siiyeen rag waa tii ay cabanayeen, ilaahay ku cadaabo. gabdhuhu si ay u ogaadaan ila raggii baan la hadalay. gabdhahana waxaan odhan lahayn gabdhow waxaa weeyaan odaygaa asale, ilmuhu asal ma aha. ogaada taas, odaygaa asal ah, ninka asal ah, ilmuhu asal ma aha. ninku wuxuu u baahan yahay xanaanadii markaad labadiina keligeed isla ahaydeen intaanad umulin ama ilmahan aanad dhalin aad siin jirtay iyo waqtiga isaga aad siin jirtay, odayga aad ku dhegan tahay, ilmaha habee waqtigiisa isagana waqti uu kaaga baahan yahay. waxaa laga yaabaa gabdho badan inay ku doodaan sheekho annagaaba maaragtay waqtiba haynin, annagaa waqtiba yacna yaa waqti noo helaba, anagu waqtiga waa badan yahay, ilmaha waa horaan habayna, laakiin iyagii raggii baa lalaayay inay yidhahdaan baa dhici karta mugta. anigana waxaan leeyahay okay, si ninkii loo helo waa inuu ninku arko gurigii oo qurux badan oo udgoon oo maaragtay sidii hooyadii aan sheegayay gabadheeda la dardaarmaysay tiri ninkaaga sankiisa eeg oo ishiisa eeg oo carabkiisa eeg oo sariirtiisana eeg. intaasoo dhan ma ka fikir bay ku tiri ninkaaga. ragga qaarkood waxaa dhici karta inay ka masayraan ilmahooda, maxaa yeelay goshii gabadhiisa uu kaga jiray ee macaaneeda diiranayd baa lasoo galay. wuxuu leeyahay ilmahan marka odayaasha sidaa ha kaga siinina. sheekh axmed jawhari aad iyo aad ayuu umahadsan yahay. waxaan soo geli doonaa ama aan kaga hadli doonaa arrin kale oo aad iyo aad muhiim ah ku saabsan love challenge oo uu sameeyey isaga iyo xaaskiisa qaaliga ah. ha yeeshee markan waxaa daawadayaal aad nala daawataan sheekh cabdiraxmaan bashiir oo barnaamijka intii uu socday runtii fariin qiimo badan usoo diray bulshada soomaaliyeed meel waliba ay joogaan, gaar ahaan bulshadii soomaaliyeed ee ku nooleed wadanka Sweden, gaar ahaan magaalada Stockholm. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد وحان جعلها عاوة إنا نسلت هاجنو آية القرآن ككمدة وكجرت سورة الروم كتاب إلهي سبحانه وتعالى. آيات القرآن كسورة الروم كجرت وآيات كو إيا لبعتنات سورة الروم. سورة الروم waxay kusoo degtay maka, waa suurad ka waramaysa cadamada ilaahay subxaana, aayadaha ilaahay kutusaya midnimadiisa iyo awoodiisa iyo kartidiisa iyo cadamada uu leeyahay subxaanahu wa tacaala. marka ilaahay waxaa ka mid ah aayadihiisa uu ka waramay guurka ayuu kaga sheekeeyey suuradatan.
إلهي وحولي ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. إلهي وحولي آيادا كوي لباتناد سورة الروم وحو إلهي كوي آيادها إلهي وحا كمدا إنه إلهي إني أبوري هداد هوين تهين رق هداد رق تهين هوين كا يرقاسو كيمد من أنفسكم نفينا كصباحي وحنقولنا هاي بيولوجيا إن علمك بيولوجيا إن رقنا وحي كيمادين دمركنا وحي كيمادين رقا سابع آيات كلا أوتري بعضكم من بعض بركين بركة كلو كسونا بحي وهذا في رسالة إيمك نينكو وحوسيتا قيب هو يدي يا قيب أبيه قبلنا وحي سيتا قيب أبيه ده يا قيب هو يدي ده مركا قبلنا قيبتي أبيه باكو جرو نفتي أبيه دونين أها باكو جرا نينك لو وحا كجرا قيبتي هو يدي أو بربا كجرت هو يدي أو هذا قبلني ما كجرته marka ilaahay wuxuu leeyahay inaka umbu ilaahay naga dhax abuuray labada qof ay isguursanaysa hadii ilaahay khitaabkan ragga lama hadlayo dumarkana waa la hadlayaa dumarka waa lama hadlayo raggana waa la hadlayaa inkastoo dadka marka ay culimada qaarkood xadiisayaan quraanka ay ku wajahaan ragga oo quraate laakiin quraanku waa kitaabullahi lin-nas jamii'an dadku dhan baa loo soo dajiyay ilaahay wuxuu leeyahay wuxuu inii abuuray nafiina wuxuu inaga abuuray azwaajan qaybtii in la baynaysay الزوج أف عربي جوا حدا ده والله مركا وقفكو كلجي نور يهي وفردي كلجي بنور يهي مركا ولا بوبو ولا لما نقضه وحا كل ما نوبة يا جبردي ويل كينا جبرد مركا الله بينقرا يعني زوجية مركا هكا كبلام سلوشي أو الله بقى يا بلا ميسا إلهي وحوليه سبحانه آياتها إلهي وحا كمدا وسكين أبورا إمكا نينكا يا جبردو أبو ويلكا يا جبردو ويسكو إيجيهين في كل شيء سانكا أفكار دجها لنعم بوسكي إيجيهين لكن وحي كوكا لدوينهن ماله نفتو أي لسكير راح يسني قبل وحي ربطانين إيطالي وحب بدن أو ديسن أو شفلة أو مارتي قورلة أو مارتي نمد أبوحدو فعل بعد ذا رجع نمد أبوحدو ربطا نيجو حربا قبل نمد أبوحدو أو دبعسن أو جلد دبعسن له أو جركيجو oo maartay isku daadan laakiin dabacsan qurux badan ayuu ninkuna rabaa marka meelaha la iskaga baahan yahay la iskaga ma eeko laakiin inta kale waa la isku eegyahay walidaalika waxa dhacaya waxa dhacdo al-insijam baa dhacaya labada qofi way isa soo doonanayaan waxa dhacaya waxa la dhahdo wahda nafsiya psychological ahaan iyo labada qofi midoobayaan markay midoobaan waxa dhacaya waxa dhacdo litaskunu waa la isku xasilayaa ilayha ninku gabadhiiba ku xasilayaa gabadhuna ninkiiba ku xasilaysaa marka xasilkaasi sakan baa dhada sakan waa la isku degayaa guriga waxa dhada sakan qofka marka halkee degan tahay carabiga ma sakanu ka halkee degan tahay guriga degan tahay maxay waa lagu xasilaa qofku gabadha dhabteedana ku xasilaa gabadhuna dhinaca ninka markay ku dhex dhacdo maaratay garbihiisa ayadna ay xasishaa marka litaskunu waa isku xasilaysaan ayuu ilaahay subhanahu wa ta'ala وجعل وحنا يالي الله بايالي بينكم دحدينا مودة كالجعيل لبدا قف وسجعليهين وجعيل باجرة جعيلكو راح حبي بعد هذا لكن حبي ومركا وجنيستو وينادو وكرو وقروح بدن هذا وحوسكو بدلان مودة وحويان حب وجعيل لقدري مارتين دينا عكلو أنا حريص لقدري وجعيل lagu daray jajabnaasho lagu daray qofku ma jeclo qofka adoo jecel baa hadana jikari kartaa laakiin jacaylkii waxa ku dheer jawaab jajabatay qofka muwadda wad kal gacayl baa fa Soomaalida wa rahma iyo naxariis بعض أهل العلم waxay dhacdaa labada qof markay jirkoogu dhisan yahay isir yihiin wali la isdoondoonayo waa muwaddada shaqaysa marka uu qofku weynaado oo ubad la isku dhalo oo aad loo koro oo da'du imatana waxa shaqaysa raxmadii marka dhinacana culimada qaar baa ku macneeyay laakiin ani waxay la tahay sida aayada ka muuqata siyaaqiga mawaddatan wa rahma isa socdaan mar qura loo baahan yahay qofku inuu xaaskiisa amba xaasku odaygeega inay kula noolaato
waagaakaasi wuxuu ahaa sheekh cabdiraxmaan bashiir oo runtii dardaarankaasi iyo fariintaasi qiimaha badan leh oo ku saabsan qoyska iyo diinta islaamka runtii noo soo jeediyey. waxaa kaloo aad daawan doontaan hadduu allah wad sarlay ogolaado marwada qaaliga ah ee sheekh axmed jawhari oo iyaduna fariin gaar ahi inoo soo diraysa. hase yeeshee sheekh axmed jawhari aan kusoo laabtay. sheekh axmed waxaa daawatay sheekh cabdiraxmaan bashiir fariintii uu soo gudbiyey muddo toddobaadyo laga joogana waxaad soo gudbisay fariin aada ugu magac dirtay love challenge. adduunku muddo bil laga joogo waxaa aada loo hadalhayay biyaha laysku shubaayo, haddana qur-aan challenge yaa yimiday, love challenge yaa yimid. qofkii ugu horreeyo sameeya ahaa dad badani waxay isweydiinayeen love challenge-ga sheekh axmed jawhari sameynayo noocoo noqon doonaa. dad badan ayaa daawaday videoga youtube-ka soo gelisay, facebookana lagu sheer gareeyay. maxaa kugu dhalay fikirka? jazaak allah khayr walaalka, aad baad mahadsan tahay. maadaama galbeedka ku nool lahay runtii waxyaabo badan oo xikmad ah oo wanaagsan ayaa jirto oo runtii in laga faa'iido dadkuna ay ka faa'iidaan ay tahay. مثلا waxaa ka mid ahaa quraan challenge-kaas oo kale. yani aniga bilmunaasaba Stockholm maadaama aan joogno waxaa ii soo diray cabdiraxmaan cabdiqaadir suudani, wiilkaa yar ilaahay ha barakeeyo, oo yidhi adeer axmed jawhar challenge-ka kasoo jawaab, quraan soo akhri. runtii waxaan ka dhex arkay faa'iido badan oo dhalinyarada laftigoodu ay isku dhiirigelinayaan qur-aankii inay bartaan ay akhriyaan. waxaa sida oo kale dhacday qaarkood aan garanaynin qur-aankii in ay ku tartamaan oo ay bartaan qur-aankii deetana ay soo daraan challenge-kii. waxaa meesha iga soo baxday faa'iido inay ku jirta ah dadka in la tartarsiin karo oo tartan ay gali karaan oo dhinaca aqalka ah ilaahay kuma cadaab. aniga iyo xaajiyadu maadaama nibasi buu yaqaana xaajiyadu, marka aniga karaama ii tahay yani xaajiyadu markaan leeyahay. dadka qaarkood baa i weydiiyey marka aniga iyo xaaskayga qaaliga ah hiba cumar geelle runtii barnaamijyadan ayaan ku jirnaa. waxaanan ka hadalnaa ummadda maxaa faa'iido u ah, gaar ahaan guryuhu kolley messagekeedaba way maqli doonaan dadka. guryuhu sideen usii jirsiin karnaa, kuwa yaryaree soo koraya ee maaragtay dhismayana siday ugu noolaan karnaa guri jacayl. waxaa marka nagu soo dhacday runtii, walow aan odhan karo fursadaasi waxay iigu macaanid ciiddii haddaan joogi lahaa. waayo hadafku love challenge dir ma aha, hadafku wuxuu ahaa hadiyad ummadda u dir oo ummaddu ha isku hadiyeyso bilmunaasaba. waa sunnadii nabiga calayhi salaam. nabiguna muxuu yidhi tahaadu taxaabu, isku hadiyeeya isjeclaanaysaan. hadiyadda nabigu muu odhan calayhi salaam waa inuu buur noqdo, waa inuu yani guri cajiiba, waa inuu sad dahaba noqdo, waa inuu ma odhan. hadiyaddaa dhiibtay marka dabcan dadkuna way daawan doonaan, laakiin falcelintii ka timid maxay noqota marka? waa su-aal aada u qurux badan runtii, insha allah waa ka jawaabi. hadiyadda yacna dadka qaarkood waxay isweydiiyeen, waa falcelintii yani comment runtii aad baan uga mahad celinayaa. yani waxyaabaan ka faa'iiday waxaa ka mid ah hadiyaddaas in caalamka oo dhan sharqan wa qarban, yani markaad eegto geeska gees, qof alla qofkii arkay runtii way soo duceeyeen. bini aadanku adduunku unugyuu ka kooban yahay, fardi mujtamac fardi buu ka kooban yahay. fardigiioo laba noqday, usruu noqday, usradii oo ballaadhatay, mujtamac bay noqotay. waad garata maaha? taasaan ugu talagalnay marka in loo gudbiyo qoysaska laga bilaabo, laakiin ay u gudbo faamiliga, walaalaha, dadka ay dhibtu dhex martay inay isku hadiyeeyaan oy isa siiyaan. cilmi badan iyo aqoon badan baa ku jirta sunnadeenna iyo kutubteenna aadka u fiican oo u baahnaan lahay runtii in dib loogu noqdo. maxaa ka soo baxay arrintii? reactionkii dadku muxuu ahaa? way kala duwanaayeen runtii. kow ducada ka mid ahayd, kow 99% waxaan oran karaa dadka soo jawaabay. halkaan aan uga mahadiyo telefishinka maaragtay Soomaaliyeed runtii walaalaha runtii noo soo jawaabay, aad baan idinka mahad celinaynaa aniga iyo xaaskayga hiba cumar. ducada aad noo soo dirteen meel kastood caalamka joogtiin, jazaakum allahu khayran ma idin leeyahay. ilaahay idinka aqbalo, idinkana ha idiin aqbalo. ibnu qayim ayaa yidhi ducaau lghaybi mustajaaba, xadiiska nebiga xikmad buu ka soo saaray. wuxuu yidhi malag baa odhanaya aamiin walaka miluhu,
marka wuxuu yidhi haddaad jeceshahay waa ibnu qayim haddaad jeceshahay waxa aad jeceshahay inaad hesho walaalkaaga wanaag ugu duce waad heli walaka mithluhu marka dadka ducadaan uga jawaabayna dadka qaar aad u kooban oo anigii sheegay way ka yara dayriyeen dadka qaar oo maaragtay u naxaya ummadoodana waxay isweydiiyeen tolo ma dhici kartaa in ay arrintani ay keento arrin faaxisha ah ama dhalinyaradu intaynan sidii loogu talagalay aynan u fahmin laakiin la sii ayada oo qaawan banaanka la keeno ayadana waan uga digaynaa ujeedadeedu ma ahayn waan uga digaynaa inaanan sidii loogu talagalay ma ahayn si kale aan loo isticmaalin jazaak allah khayr aad iyo aad ayuu umahadsan yahay sheekh axmed jawhari daawadayaal sheekh axmed jawhari waa kusoo laaban doonaa wuxuu bixin doonaa talooyinka iyo ugu dambeyntii waxyaabaha xalka u ah in qoysasku ay asal ahaan ama dhismo ahaan ay ku nabad galaan ama ay waaritaana joogto ah ay ku helaan hayeeshee iminka waxa aan jecelahay inaad nala daawataan fariintii ay soo dirtay hiba cumar geele oo runtii ah marwada qaaliga ah ee walaal axmed jawhari fariintii ay bulshada soomaaliyeed ku nool wadanka Sweden ay la wadaagteen waatana daawasho wanaagsan أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي بقى ما هدس كلا ولا ليال إنه فضيدية إن ما دركتي حلقة عنك وضح ظلنا runtii yani magacayga intii garanaysa inta kale waa hiba cumar geele xaaska axmed jawhar bilaal baanahay waxaanan maanta aan jecelnahay walaalka oo isagu idinla jooga iyo anigoo niga soo maqanba inaan wax badan aan wadaagno aan wax badan aan isku sheegno oon kala faa'iidaysano runtii fiidiyogana sababtaa dartiis baan usoo duubayaa lianna waxa ii suurtageli weyda inaan imaado duruufo dartood markaa runtii heer Sweden waa idinsoo salaamayaa salaanta islaamka ayaa idinku soo salaamayaa dhammaantiin waxaa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fiidiyogan waxaan walaalayaal aan rabay inaan uga hadlo qeybtiisa hore insha allah sababaha keensaday inaan mowduucan aba barnaamijkan aan aniga iyo walaal axmed jawhar aan bilowno lianna waxa weeyaan wax badan baan dareensanayn in faamiliga soomaaliga oo dhib badan uu ku jiro khaas ahaana intan dambe dhibtii waa sii ziyaaday dhalinyartii oo kortay oo reero yeelatay dadkii hore oo reeraha lahaa mujtamacii soomaaliga oo aada usoo batay yurub markaa dhibtii ayaa badatay walaalayaal dhibtaas badatana waxay keensanaysaa in wax laga qabto khayra umma ukhrijat linnaas waxaa loo yidhi ummata maxamed waa waxaas in dhibaatada muslimiinta meeshay ka haysato in la abaaro oo wax laga qabto runtii haddaan khayra umma nahay waxa weeyaan inaan u dhaqano sideedii ayaa la rabaa qof walba awoodda iyo abilityga uu ilaahay siiyey uu dhinac u ka galo ummadaas ummatu maxamed la yidhi ee khayru umma la yidhi waa inay u gargaaraan ay ka dhigaan sifadaas si u yeelan lahayd waa inay ka dhigaan runtii hadda waxaad moodaa inay xaaladdu ayna sidaas ahayn oo maad aragtay dhibaatooyin badan ummadda muslimiinta ay haysato laakiinse insha allah waa imtixaanada la marayo ee laga bixi doono biidni illaahi alkariim marka waxaa la rabaa walaalayaal qaarkeen inaan u sara kacno badbaadada ilmaha qaarkeen inaan u sara kacno badbaadada maad aragtay ay dhulka aan ku noolnahay qaarkeen dadka waaweyn maad aragtay ilmaha hooyooyinka cid walba jaanib walba laga galo marka anaku jaanibka aan fadilnay oon jeclaysanay inaan wax ka qabano waxa weeyaan jaanibka faamiyada iyo maad aragtay unuga labaad oo ummaddu ay ku taagan tahay unuga ugu horeeya ummaddu ku taagan tahay waa qofka fardiga inuu wanaagsanaado waxa kusoo xiga inuu reerku wanaagsanaado usradu inay wanaagsanaato ayaa kusoo xigta marka waxaad ogtihiin walaalayaal wadanada aad ku nooshihiin Scandinaafka ina looga daydo faamiyada say ula dhaqmaan faamiyada say ula dhaqmaan waxa la yiraahdaa waa meelaha ugu wanaagsan inay faamiye la dhaqmaan amba ay